بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaasha qiimaha badan loo waa mar kale iyo barnaamijkeennii mahuraanka muslimka waxaanu ku soo guda jirnay inagoo ka soo waramanay zakada darsigooni horena baan kaga soo warranay hordhac ku saabsan si guud zakadu maxay tahay waajibnimadeeda iyo meelaha zakadu ay gasho wali hordhici baynu ku jirnaaye xikmadaha loo sharciyeeyey zakadu maxay yihiin dabcan ilaahay subxaanahu watacaala waa cibaado uu inagu addoonsaday wax ka midana waa laynoo sheego waa laynooga warramay wax ka midana waa laynaga qariyo aqoon baynaan u lahayn oo ilaahay baynu ugu dhowaananaa una samaynanaa isaga dartiisii aynu u xaqiijinno addoonnimada aynu u nahay allah subxaanahu watacaala addoomo xikmadaha loo sharciyeeyey waxaa ka mid ah zakada ama sadaqada waajibka ah in maalka la daahiriyo la nadiifiyo waa hantidiye oo ilaahay subxaanahu watacaala uu barako kuu dhex geliyo kuuna kobciyo oo ku farabadiyo laba sidoo kale waxa ka mid ah xikmadaha loo sharciyey zakadii in laga daahiriyo laga nadiifiyo qurunka iyo dhaqanada xunxun ee shaxiixnimada bakhayltinimada gacan adeygaba qofka musakiga ah ee zakada bixinaya laguna tababaro nafta inay ilaahay dartii wax u bixin karto qodobka saddexaad ee ka mid a xikmadaha loo sharciyey waxaa ka mid a in dadka fuqarada ah iyo dadka masaakiinta ah oo ah 8 qolo ilaahay fi suurati tawb uu ku sheegay in aynu siino si ay baahidooda ugu daboolaan qodobka afraad ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u sharciyeeyey in la xaqiijiyo isku tiirsanaanta iskaashiga iyo jacaylka ka dhex dhacaya mujtamaca ama bulshada muslimiinta ah si meesha looga saaro faquuqa iyo kala tagga iyo inay dabaqado aan iska warhayn ay noqdaan oo dhexdooda xiqdi iyo xasad iyo baqdaa iyo cadho iyo colaad uu dhexdooda aan u dhicin si taas looga hortago loo xaqiijiyo baa ilaahay u sharciyeeyey zakada qodobka shanaad ee loo sharciyey zakada waa inaan ilaahay subxaanahu watacaala ugu mahadnaqno maalka uu ina siiyey waxaanay caddayn u tahay qofku zakada markuu bixinayo in iimaankiisu uu yahay mid dhab ah haddaad aragto qof saka ay ku waajibtay oo aan zakadii bixinayn ama la meeraysanaya ama maalinba shaxaadka laga qaado iyo wixii loo baahdaba odhanaya waa zako isagoon u eegeyn cidda qaadanaysaa ma ka mid tahay 8 qaybood waxay calaamad u tahay qofkaasi iimaankiisu inaanu ahayn iimaankii dhabta ahaa ee daafica u ahaa ee riixayey ee ku keenayey inuu si dhab ah u bixiyo zakada qodobka lixaad zakadu waxay sabab u noqotaa raaliyaanshaha ilaahay subxaanahu watacaala maadaama qofkuu samaynayo cibaado weyn oo jaliil ah khayraad fara badan iyo barakooyin fara badanna ilaahay subxaanahu watacaala waa uu soo dejiyaa sayi-aad iyo gafaf fara badan oonu samaynanana ilaahay subxaanahu watacaala waa inagaga dhaafaa intaas waa xikmadihii loo sharciyey zakada dabcan cid bay ku waajibtaa cidda ay ku waajibto waxaa loo yaqaanaa almukalaf oo qofkii la cusleeyey shuruudda loo dhigaa muxuu yahay kow inuu qofku muslim yahay qofkan zakada bixinaya waa inuu muslim yahay oo dagaalkii lagama rabo zako maxaa yeelay zakadii waa cibaado maali ah cibaadada maaligaana waxaa asal u ah iimaaniya islaamnimo laba xorriyad inaanu qofkani addoon hayn oo zakadii kuma waajibto addoonkii maxaa yeelay waxba ma mulkiyo waxay zakadu ku waajibaysaa sayidkiisa ama cidda isaga hantida qodobka saddexaad waa mulku nisaab inuu nisaabkii ama intii mucayanka ahaa uu gaadho oo dee xaajaadkii iyo waxyaabihii daruuriyaadka ahaa zakadu ma gelaso laakiin waa inuu shaygan mulkigee la mulkiyey uu yahay mulki ka mida waxyaabihii laga bixinayey zakada nisaabkiisiina gaadhay oo aanu ka mid ahayn waxyaabihii dad daruuriyaadka ama baahidu ay u qabeen sida wixii la cunayey wixii la xidhanayey wixii la gelayey wixii la raacayey wahaluma jir qodobka afraad oo dabcan in gaar ah ku kooban waa xawlaan alxawl in sanadkii usoo wareego 12 bilood ee qamarigaha isagoo nisaabkiina gaadhay in 12 bilood ay usoo wareegaan wax markaa laga soo reebaya sideen hore usoo sheegnay dee zaricii iyo waxyaabihii soo baxay ee midhaha ahaa ee la kaydsanayey ee la quudanayey ee kaydka geliyey iyo waxyaabihii macaadinta ama rigaaska ama dhulka laga soo helay ama laga soo faqay zakadu qaybahay u qaybsanto ama deynta marka la fiirinayo cidda lagu leeyahay zakadu waxay u qaybsantaa qaybta koobaad zaka la xidhiidha xoolaha ama hantida waana da noocyadii kala duwanaynu soo sheegnay zaka labaadna waa qaybta labaad ee waxay la xidhiidhaa abdaanta ama jirka oo iyadna waxaa ka mid ah dee zakaatul fitr oo iyadna la xidhiidha badanka ama jirka qofka zakaatu dayni calaa mucsir waa qofkii mucsirka ahaayee deynta lagu lahaa zakadiisii
سند كليا مركا لقى بحنية سكن زكاة الدين على ملء قادر إسكن كل عام سند كستوى لقى بحنية لأنه في حكم الموجود عند صاحبه مركا قيبهاس بوقيب سنتا مركا حق الدين تلقيه يحق لحريله إله سبحانه وتعالى كبر ينا إن عبادة جليلك إنه فضيديو إنه نفهم سيو إنه قرب قلو آديات بالماسنتين والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وبالله توفيق.